gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool Mudane Cabdirashiid Xirsi Dalmar dadweyne aad u tiro badan oo qaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Sool gaar ahaan xarunta gobolka Laascaanood ayaa maanta si mug iyo miisaan loo soo dhaweeyay ganacsadaha weyn Maxamed Jibutaawi iyo waliba company ajaanib ah oo soo ka howlgali doona magaalada Laascaanood kana shaqeyn doona dhanka horumarinta leydhka goorena waxa halkaasi ka hadlay soo dhaweyntaasi cuqaash iyo waxgaradka iyo waliba cilmaadiinka magaalada Laascaanood oo mahadnaq ballaaran u jeediyay company-ga Jibutaawi waxaanu halkan ku soo dhaweynaa wakiilo ka socda shirkad company China oo markii ugu horeysay yimi gobolka Sool oo uu watay Xaaji Maxamed Jibutaawi oo ganacsadaha gobolka Sool oo ah ninka maxaa ku raahdaa horumar badan ka qabtay gobolka waftida faraha weyn ee marka weyn ee aan caadiga sinama caadiga aan u ahayn ee wado Maxamed Jibutaawi عبد الرحمن فيليا محمد جبوتاوي إنه يكذب تاي وحكبت كلاس عانود وحن كبر رجليا جناحسته قبل كلاس عانود شركة هو شركة شينا قال الله سبحانه وحجل لسا سيستم لير بجل لسا أو سولارا وحبا هذا إنه كل في لسانه شركة لسكال إلى لا لو رتم سلاستي هل دولار يبر بكبلود شركة waxay ballan qaadaysaa 0.5 iyo wixii ka yar in dadka laga qaado waxay kaloo ballan qaadaynaa haday tahay caafimaadka haday tahay xarumaha dawladda haday tahay waxbarashada intaba leerka bilaas baa dhiganaa masaajidada inta goobaha soo bilaas baa looga dhigayaa waxaasuna halkaasi ka hadlay garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaale oo isaguna si balaaran soo dhaweeyay sheegana cid kasta horumar ka geysanaysa magaalada Laascaanood ay soo dhaweynayaan aanu halkan ku soo dhaweynaynaa gurigan ay ugu soo booqday Master Chain oo ah khabiir ka tirsan khabiirada dalka China qaybta energy-ga company-ga Jibutaawi Sheekh Maxamed uu isagu mas'uulka ka yahayna ay wada socdeen gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool Mudane Cabdirashiid Xirsi Dalmar ayaa isaguna halkaasi ka hadlay oo sheegay in shirkadda ajaanibka iyo waliba ganacsadaha weyn Jibutaawi company Maxamed Jibutaawi uga mahad celiyay horumarka ballaaran oo ka wado magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba gobolka Sool waxaanu soo dhaweynaynaa wax alla wixii wax qabada ee loo qabanayo ummadda Ilaahay ku beeray gobolka Sool waanu soo dhaweynaynaa diyaarna waanu nahay waxaanu idinla diyaarsanahay dhulkii aad dhisan lahaydeen intuu doonaha noqday annaga idin hayna shirkadaanu soo dhaweynaynaa warshadaanu soo dhaweynaynaa leydhkaanu soo dhaweynaynaa我们中国中信公司来到拉萨安呢，不是仅仅的为了生意而来，而是为了帮助拉萨安的发展而来。wuxuu yiri company-gu uma iman meeshan inuu ganacsi ka sameeyo inuu ka shaqeeyo magaalada iyo horumarkeeda baan halkan u nimid company-ga ayaa soo ka shaqeyn doona dhanka horumarinta leydhka oo baahi ballaaran u qabaan bulshada reer Laascaanood waa Barkad Cumar Axmed telefishinka qaranka Soomaaliland Laascaanood